بسم الله الرحمن الرحيم Soomaaliyeey maanta waxaan rabaa inaan iska hadlo waan iska hadlaa waan hadlaya macnaha waa iska hadlaa markaan ku leeyahay qofku hadduu garan waayo meel laga jiro waxa uu ku fiican yahay inuu hadlo markaan hadlaya waxaan rabaa inaan su'aal idin weydiiyo su'aashaas aan idin weydiinaa waxaan rabaa waa ku qaldan tahay waa ku saxan tahay inaad tiraahdaa haddaan waayo waa ku qaldan tahay waa ku saxan tahay waa inaan iska hadlaa marka waa ku qaldan tahay su'aashaas waa ku saxan tahay Soomaaliya waxaan waaye Soomaali meel ay ku saxan tahay iyo meel ay ku qaldan tahay meel qabtaan Bismillahir Rahmanir Rahim A'uudu billahi minash shaytaanir rajiim Soomaali ayaan rabaa maanta inaan la hadlo waxaan rabaa inaan jawaab ka helo Soomaaliyeey waxaan rabaa inaad ii soo jawaabtaan Soomaaliyeey ciladahan Soomaali maanta ku soo batay oo la yaabanahay bal waxaan rabaa waa ku qaldan tahay waa ku saxan tahay xataa inaan helo sababtoo ah adinkii baa waxa leen ka waayay war waxaana qalad iyo waxaana saxa wixii dhamaa waxay noqdeen isku taag iyo iska horimow iyo iska dhig iyo anaa dilaa anaa cunaa igama daba hadli kartid war waxaas maxay tahay Soomaaliyeey maxay tahay waxaas anaa dilaa anaa cunaa igama daba hadli kartid maxay tahay waxaas anaa talina kula tashan ma ii talimaysi war ilma adeerayaal maxay tahay waxaas waa yaabnay maxay tahay waxaas walaalayaal Soomaaliyeey maxay tahay waxaas wax loo adkeysan karaa wax ilmaha iyo caruurta iyo dadka iyo maartay masaakiinta meelaha dhooban hadii la gaajada u baqtinaysiyo kuwa baadiyaha hadii la ku yahay ay ku hayso biyo la'aanta iyo baahidu hayso oo calankeeni iyo dalkeeni saa loogu tuman hayo inta ku fiirsanaa waxa la ku fiirsan karaa ma waxa ya waxa waaye waxaan ku diiday ii diidi maysi kuma doonayo war ilma adeerayaal maxay tahay waxaas cali waa haabaan cabdi waa ka daba hadlay John Chimow noo dhaxdeena ka hadal John Chimow na kala qabo John Chimow na kala celi war waxa maxaa waaye Soomaali goormay saan noqotay ya Soomaali goormay saan noqotay subhanallah war ilaahay ka cabsada ilma adeerayaal war dadka xilkan Soomaali noo hayo iyo dadka kale oo hadii ilaahay kugu reeyay loogu tala galay inay maaragtay ayaguna hore u soo qabtiyo kuwa hayaba war waxaan wax ma ahan war waxaan wax aad ku hadashaan ma aha xalanaan taagana cabdi baa taagan hebel baa diiday war dhagaheena wax xun bay ku dhacayaan war dhagaheena wax xun baa ku soo dhacaya war waa yaabana war waa hooyan laana war waa harsan laana dagaal baa qarxay mid baa taagan mid baa la isku cunaya aniga iska leh xoolihiibu cunay xoolihiibu dhacay ma dhici kartid waa ka dhacsana war ilaahay inta ka cabsataan ilma adeerayaal masaakiin baan nahay isbitaalada qaar baa ku qormo yaala oo baadiyaha qaar baa biyo la'aan ku go'ay oo dad baa dagaal hadii alkuure meel kula baaba'ay war ilma adeerayaal ilaahay ka cabsada war maanta xaalku muxuu yahay waxaan islahayn 2021ka meel fiican oo jiha fiican loo baxaya oo waa soo reysan doontaan maxay tahay waxa aan ugu celiseen iyo dhibaatada aan ugu celiseen war ilaahay ka cabsada war xaalkiinu sidaan si ha loo dhaamo war ummadda u naxa war adiga war fiiri war adinka cuna hadaa rabtaan war xoolaha Soomaaliyeed adinku cuna hadaa rabtaan war guriga ka dhista hadaa rabtaan war sara ka dhista hadaa rabtaan hadaa dhimatay walaalka hadaa dhimatay awlaadaadii aniga u hareyna ila Soomaali ma aslan xoolaha anaga isla leh war bari baa wax qofkaas waxay taraya war gaal ha iga daa xoolaha war mitisheeyo xoolaha iga daa war America xoolaha iga daa dad baa waxay ku faanayaan la yaabay Ethiopian baa passport Ethiopian wata mid Mareykan baa wata adigu qorax joog baa tahay war maxay tahay waxaas waxa ku gurgurtamaysan waa calankii Soomaaliyeed waa qarankii Soomaaliyeed waa dhulkii Soomaaliyeed waa badii Soomaaliyeed sidaan dan miya
aadi aad baad damiirteedu u kacsan tahay aadi aad ayaa damiirteedu u kacsan tahay haddii aad maqashaan naago badan baa isdilay gabdho badan baa isdilay rag badan baa isdilay dhalinyaro badan baa isdilay haddaad maqashaan sabab adinkaa u ah dalkiibaa gacanta ka baxay sabab adinkaa maanta u ah inta xilka haysa hadday baarlamaan tahay hadday madaxweyne tahay hadday kuwa kale haddii lagu reeyahay mucaarad tahay hadday hebel tahay hadduu hebelka hebel yahay waxaasoo dhan adinkaa mas-uulka ah sababtoo ah sababtaad mas-uul uga tihiin idiin sheegaya war gacantii wixii adinka idkugu aruureen adinka xoolihii gacanta idkugu jiraan annaga waa idin fiirinayna masaakiin idin fiirinaysaana indhaha xun baan idku soo fiirinayna war ilaahay ka cabsada annaga waxaan rabnaa calankeena inuu babado annaga waxaan rabnaa baddeena inaan haddii alkuuna leenahay khayraadkeeda inaan cunaynaan rabnaa ummaddeena soomaaliyed inay noolaataan rabnaa qof kaloo aan soomaali ahayn inuu nagax kalluumayso nagu dhex dilo nagu dhex cuno ma rabno mana doonayno war naga ilaalisha war ilaahay ka cabsada wallaahi iyo bilaahi iscunka iyo waxa adinka aad samaynaysaan maanta waxaa iga daran hal xabo jiin joon oo idin soo dhexgala ama jiin jamaan oo idin soo dhexgala oo joon balaaya idin soo dhexgala aniga kaas ay iga daran war xal baan gaari doonaaye iska dhaafa waxa kaleeto balaayada iyo Ameerikaanka iyo qashinka iyo waxa kale aad soo daldalaysaan dadka naga dhex talinaya iska dhaafa adinka soo maaha ilma adeerayo dagaalka lee naga ilaalisha afka iska cuna xoolaha iska cuna waxa abtina iska qabta haraatin ugu dhufta awlaadiina iska cunto iska mushaaxa ma adduunka meel ka sarftaan waxa ka soo daadka dagaal naga dhaafa waan doonaynaa xal baan gaari doonaa insha Allah dagaal hadaan naga dhaaftaan gacan hadaan isku qaadin hadaan ciidan isku dirin hadaan dagaal soobin xal baan gaari doonaa laba mid kaliya iga ilaaliya maanta laba inaad iga ilaalisaan rabaa inaan Soomaali qof ahayn adduunka maanta uusan xoolahaygana qaadin meel kalena iga geyn igana cunin ina soo dhaxgalin ina talin baan rabaa labo waxaan rabaa haddii Ilaahay ku ron yahay aadna dagaal gelin hal dagaal inaadna suubin ilaahay idinkii Soomaali waa wada hadashaa waan heshiisaa wada hadla heshiiyo naga daayo dadka kaleeto naga daayo dadkana soo dhaxgalay naga daayo dadka halkan xalana dhoomad naga daayo dadka balaayada jiniyada meelaha daran ka soo hadlayo oo dalkeena iyo dadkeena u soo socda noo ilaalisha badaha oo noo ilaalisha calankeena oo noo ilaalisha qarannimada Soomaaliyeed oo masaakiinta idin fiirinayso daan idin soo baqbaqa idin soo fiirinayso isbitaalada idin soo fiirinayso meelaha qorraxda ku baabaasan oo idin soo fiirinaya war naxa oo iska naxa oo isku naxa waxaan rabaa ilaahay inaan idin bariyo ilaahu intaanu cudur Soomaaliyan ku adagnay ilaahu walaale isdoorta ka dhig ilaahayow rabbiyow intaanu cuduraan Soomaali ku aragnay walaale isqaata ka dhig ilaahu rabbiyow intaanu cudur aan halkan ka soo sheegan Soomaali ku aragnay walaale isdoorta ka dhig ilaahayow walaale dalkooda u naxa ka dhig ilaahayow walaale isdoorta oo wada shaqeysta oo danahooda ka hadla oo dalkooda u naxa ilaahu ka dhig ilaahayow walaalo masaakiintooda iyo ummadooda aruursada ka dhig ilaahayow walaalo u naxa calankooda iyo qarankooda ka dhig ilaahayow walaalo caadila oo isdoorto oo la doorto ilaahu ka dhig ilaahayow walaalo caadila oo xaqa iyo baadilka kala yaqaan ka dhig ilaahayow walaalo caadila oo xaqa iyo baadilka kala saara ka dhig ilaahayow sharafteeni iyo calankeeni iyo dadahaanimadeeni iyo quwadeeni iyo sharafteeni noo soo celi ilaahu waa ku baryaa ilaahu uga aqbal ilaahu waa iga aqbal tabar kale malihi ilaahu tabar kale malihi Soomaaliyeey ma qaldana waa qaldantahay ma dhihi kartaa waa saxantaana ima dhihi kartaa sababta adinkaa qaldan adinkaa saxan adinkaa qaldan adinkaa saxan adinkaan meel alla idin raaca lahayn waa idin salaamaya xanuun baa iga keenay cara iga keentay canaan baa iga keentay qofaan aqaana male madaxweyne u tagaa male mid kale u tagay male mid ciidan haysta u tagaa male guri baan iskaga jiraa ilaahay waxaan iskaga baryahayaa cudurradaas aan soo sheegno dhan ilaahay inuu ka baabi'iyo oo dalkiina iyo dadkiina aad maanta aad u soo jeesataan waa idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh anigana ilaahay waxaan ka baryaa ilaahayow caafi dambi haddaan galay ilaahu dambi haddaan galay caafi war Soomaaliyeey ma saxanahay mise waa qaldanahay